هاي هل وصل هذا برنامج بي كي دي محسوق إنسان إلى آخر السيو بي كي دي يمقص يعني كلية هذه كان مقصية. طبعا هذا اسمه ديني سي waxa laga wado BKD ama waxa ay u taagan tahay BKD ama macnaha laga wado BKD طبعا هاتسا BKD باروكو دقن diintaada. طبعا ان شاء الله بدنا كلمات برنامج ka hadlayna soo dhawaada walaalahayga meel bad ku joogtaan waxaan soo dhaweynaya gacmo furan qalbi furan iyo maskax furan kusoo dhawaada barnaamijkeeni inoo socday maalmahan oo dhan oo ga hadlayna 15 qodob. waxaa la soo gaaray qodobkii aan uga hadli lahayn su'aashii dad badan ay sugayeen. su-aashana waxay noqonaysaa goormaan guursadaa, intee ku guursadaa, meesha weli waa labaynayaa, weli waa cabsanayaa. mawduucan waa mawduuc qaabo badan markii loo fiiriyo la kala fikir doonaan karo. guurku sidiisa waa calafkana adiga gacanta kuma haysid. laga yaabo walaalo badan in aniga ka cabsanayaan. marka dabcan haddii fikradeyda ku cajibin weyso ama aad ka heli weyso, dabcan fikirkaaga iyo caqligaaga iyo maskaxdaada ha ku hagto. doorashadan adaa iska leh, laakiin calafka adiga ma lihid. bini'aadamku waxay samayn karaan oo keliya ayaa waxay tahay inay dadaalaan, inay fikiraan, inay Allah subxaanahu jalla wacala u noqdaan. haddaybo Allah subxaanahu jalla wacala caabudaan ama ilaahay ay jecel yihiin ama ilaahay inay aaminsan yihiin inuu wax walba maamulo, uu qofka u qorana ay helayaan, qofkuusa u qorina aysan helaynin. نعم ولا ليال إلى سبحة الله خير هذه السيو سايدين سو شيء برنامج آدي آد وحيس بدن أما سؤال آد وحيس بدن. طبعا أنا كعبد الغني أهان فكر كيجو وايدي سو كنت بنايا وحان أوديجا فكر كيجا لا بقي قيبت كواد وحان ليا هاي. طبعا قفول بوحو أكسون هاي إن أي أوانك سنت هاي إنو كوجور سدا ماشي أو جوجو meeshay doonto haba ahaatee, yani meesha uu qofka joogo inay asaga iyo familkiisa isla noolaadaan oo waxyaalaha ugu haboon ee laga doonayaa qasdiga guurka in labada qof isla noolaadaan, is asturaan, isla raaxaystaan oo isla noolaadaan oo nolol fiican oo wanaagsan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka yahay inay ku noolaadaan. ama markaan fiirina waaqica aan ku jirno, fikirkeyga dhinaca kale ayaan u gudbin karaa markaas. oo waxaan leeyahay qofkii awooda inuu iska ilaaliya inuu ku guursado qurbaha ama meel aan ogsoonahay xaaladaha kala duwan, dhaqanka kala duwan, diimaha kala duwan ay leedahay, yani inuu hadduu awoodo uusan falkaasi samaynin. arrinkan sababtan u leeyahay waxay tahay culimo badan, dad badan oo khibrad u leh arrimahan ayaan la fariistay, munaaqasho badan iyo discussion badanna waxaan yani hadalkii uu kusoo gabagaboobay dadka caqliga badan, dadka xikmada badan, dadka mustaqbal adduun iyo mid aakhira ka fikiraya, waxay badanaa dhalinyarada kula taliyaan ama ay tahayba in ay usoo gudbiyaan ayaa waxay tahay qofka waxyaalaha ugu muhiimsan noloshiisa ma ku badbaadayaan. guurka lagu sheegayo waa badbaado adduun iyo aakhira. nabigana sallallahu alayhi wasallam markaan diiniyan sharciyan fiirina walaalayaal, guurka waa sunno. sidaas darteed nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis ayuu wuxuu ku leeyahay, xadiis mashhuur ka ah oo guur walba ama meel walba ama mar walba guur laga hadla la soo qaatay waxay tahay dhalinyaro qofkiin awooda inuu guursado ha guursado. sababtoo ah waxay u tahay il dabool bimacnaa yani indhihiisa ayaa u qarsoomayo, farjigiisana wuu ku dhowrsanaanaya. qofkaanan awoodin ha soomo. nabigana sallallahu alayhi wasallam kaana mucalliman, macallin ayuu ahaa jacaylka, xikmadda, nolosha, guurka, wax walba. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نلوش يسدنا وحي كان خلقه القرآن، قرآن كالصعدة ويا مرأة وحالة ويدي عائشة كور النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق دي سيتري كان خلقه القرآن. مركا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلوين كيسا وحالة بدن أيانا قام فعيان.
marka kow marka meeshaas laga fiiriyaa iyo marka diin ahaan laga fiiriyaa waxaa fiican qofka meesha uu ku badbaadaya asaga familkiisana ku badbaadayaan caruurtiisana ay ku badbaadayaan inuu ku guursada jawaabta saxda ah waa taas haddaad is leedahay awooddaas leedahay xikmaddaas leedahay caqligaas leedahay cilmigaas leedahay oo aad ku badbaadi karto ubadkaaga iyo ubadka ay sii dhalaan meesha rabtaa ku guursan kartaa markaas laakiin su-aasha meesha talaa waxay noqonaysaa ma awood adiga awooddaas ma lihid ee aad ku garanti ku qaadid inaad maaragtay ku badbaadin karta caruurtaada ama caruurta ay sii dhaleen sidaas darteed ani ahaan ka cabdiqani ahaan waxaan kula talin lahaa dhalinyarada hadday sabri karaan hadday ma aragtay dadaalayaan hadday ma aragtay doonayaan adduunya aakhiro waxa u fiican inay ka tashtaan inay ka fikiraan meesha ay ku guursanayaan maanta waxaanu garanaynaa dhalinyar aada u fara badan ayaa ku guursatay qurbaha ama dibadaha ama whatever meeshaa rabtid doodheh oo waddankeeni ama waddan islaam aanan ku guursanin waxyaalaha badanaa ay la kulmaan waa cajiib kow horta dhalinyarada diinteenna ayaa waxay iska tahay gebgeb runta hadii laga hadlaa dhalinyarada marka laga hadlaa caam ahaan diinteenna ayaa waxay iska tahay gebgeb qofka markii ay diintiisa gebgeb tahay asaga maxaad is leedahay ubadkiisa inay noqonaysa marka micnaha fikirka laga hadlaya in laga fikiraa ma aha oo keliya mid adiga ku quseeya ma aha oo keliya mid yani laba ruux quseeya waa mid quseeya mustaqbal waa mid quseeya mustaqbal yani bini aadan hadaaba dhahay hataa mustaqbal dad muslimiin ah arrintaas waxaa ula jeedaa waxay tahay ambiyadii hore iyo dadkii wanaagsanaa ubadkoodii markay geerida kusoo dhawaatay waxay ugu horeysay ay weydiin jireen ama ay kula dardaarmi jireen ama ay weydiin jireen ayaa waxay tahay maa tacbuduuna min bacdi aniga gadaashay maxaad caabudaysaan macnaha fikirkaas hadduu kugu jiro uma malaynaa inaad ku degdegaysid inaad ku guursataa wadamadan qurbaha laakiin qof dhalinyaro ah shahwadii gubaysa iska baashaala diin mustaqbal caruur aanan ka fikiraynin meeshuu doono ku guursanayaa dabcan lianna fikir kuma jiro diimeed sidaas darteed waxaan u kala qaadaa laba dhinac dhinacna waa mid diin qusaysa iyo mid mustaqbalkaaga adduunya aakhira qusaysa iyo ubad kuusoo duceeya su-aal is weydiin kartaa oo waxaad dhihi kartaa cabdiqaniyow yani garanti miyaad u haysataa ubadka aad ku dhashay wadamo muslimiin ah ama lagu dhalo wadamo muslimiin ah inay noqonayaan awlaad saalix ah bimacnaa marka qaar dhalinyaro badan baa arrinkaas ku fikira ama waxay lahayaan gabadha aada guursanaysid ma gabar saalixad baa gabadha maaragtay joogta wadamada muslimiinta ama wadankii hooyo markii loo barbardhiga ama gabdhaha Sweden ama Finland ama Norway ama Scandinavia ama Europe oo dhan ama Mareykan ama Australia whatever meeshay doonto dad qurbahan joogto inay ka fiican inay ka xun yihiin gabdhaha Soomaaliya joogo taasna waan ka hadli doonaa waxaan uga hadli doonaa qaybta ku xigta laakiin arrinta hadda waxay qusaysaa qofka guursanaysid guurso waxaad isku daydaa inaad ka fikirtaa arrimo badan intaadan arrinkaas sameynin arrinkaas sababtaan uga hadlayo waxay tahay dad badan is weydiinaa waxay leeyihiin cabdiqaniyow maxaa arrinkaas uga hadlaysaa arrinkan waa idinka ballan qaaday inaan idiin soo gudbiyaa kow labo waxaan kaloo idinka ballan qaaday inaan fikirkayga idiin soo gudbiyaa oo arrinkan ku saabsan sababta waxaa idiin sheegay wax walba aan ka hadlo waa kasoo fikiraa alxamdulilah meelal badan ayaan ka fiiriyaa kadib ayaan idinla qaybsadaa maadaama aan ka mid nahay BKD marka walaalayaal fikirkayga waad fahanteen barnaamijka aan doonay inaan soo gudbiyo waad fahanteen sidaas darteed marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr ha idin siiyo intaadan guursanin ka fiirso guurka ciyaar ma aha guurka kaftan ma aha guurka ma aha waa ku jecelahay waa jeceshahay waa ka weyn tahay arrinkaas guurku iyo ma aragtay qaybihiisa kala duwan insha Allah biidin Ilaahi al-Kariim qaybaha ku xigo ayaan uga hadli doonaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal dabcan markii guurka laga hadlayo waxaa soo hoosgalaysa xataa meeqa ayaa la guursan karaa laakiin arrinkaas mar kale ayaa ka hadlayna asagana intaadan guursan ka hor su-aalo badan isweydii intaadan guursan ka hor ka fikir intaadan guursan ka hor isweydii sababtaad u guursanaysid
qofka aad guursanaysid iyo goorta meesha aad ku guursanaysid lan waxyaalahaas waxyaalo badan ay ku maaragtay fududeynayaan. waxaa kaloo ka fikirtaa weliba aad iyo aad uga fikirtaa aan kugula talin lahaa aniga waxay tahay inaad ka fikirtaa qofka aad guursanaysid, wiil iyo gabarba mid ku rab ha ahaadee, familkeeda ama familkiisana fiiri, akhlaaqdiisa iyo diintiisana fiiri. dabcan dhalinyarada maanta waan garanayaa ma fiiriyaan waxyaalo aad u fara badan ee diinteena nafartay oo ilaahayna faray oo nabigana faray. waan ogsoonahay kulligii waan wada garanaynaa sababtii arrinkaasi u sameynina waan ka hadlay, waxaan uga hadlay dhinaca Instagram-ka. aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.